بسم الله الرحمن الرحيم كل ما عم داوديال meel walba ay joogtaan kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan maanta la yeelanayno wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka Hirshabelle horena u soo noqday mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane wasiir kusoo dhawo Hirshabelle TV bal marka hore kusoo dhawo Hirshabelle waa mahadsantahay waa leeyahay xamdi wasiir waxaad warbixin kooban naga siisaa waxaa wasiir ka tahay wasaaradda qorsheynta Hirshabelle oo kaalin muuqata ka qaadatay arrimaha horumarinta ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxyaabihii idin qasoomay tan iyo markii aad noqotay wasiirka wasaaradda qorsheynta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين aad iyo aad u mahadsan tahay waqtiga qaaliga oo iga siisay idaacadda TV-ga dowladda Hirshabelle runtii aadan ugu faraxsanahay idaacaddan inay hirgasho hawada soo gasho waxaan rabaa mahad inaan u celiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo mahadoo dhan u sugnaatay marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen maaliha ka gaarto runtii dadaal badan uu geliyay ballanqaadyadii uu sameeyay dhowrka ahaa bulshada horumarinteeda kamid ahaa mid kamid tiir kamid waa kan waxaana dhihi karaa waliba waa tiirarka ugu muhiimsan waa meesha kaliya ee reer Hirshabelle ay codkooda wax ku gaarsiin karaan waa meesha kaliya ee ummadaha kale jaarka nala ah ay naga arki karaan horumarka aan gaarnay iyo waxa aan qabanayno runtii mar labaadaan u mahad celinaa madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen wasaaraddu ma aha anigu wasiir waxaan ka ahay muddo hal sano ah muddada halka sano ah wasaaraddu waxqabadkeeda kuma eka wuu ka horeeyay runtii intay dowladda Hirshabelle jirtay ayay wasaaraddu jirtaa wasiirkii saddexaad baan ahay aniga marka qori isu dhiib bay ahayd wasiir walba wasiirka kaleeta ayuu ku soo wareejinayay runtii waxyaabaha qabsoomay wax la soo koobi kara ma aha runtii wasaaraddu sideedaba iyadu ma aha fuliye ma aha laakiin waxay keentaa mashaariicda waxay qorshaysaa waxa sanadkan la qaban doono istatistics ahaan qorshe ahaan shaqadeedu waa intaas okay wasaaraddu marka wasaarad kasta ee shaqayso link bay leedahay wasaarad kasta dowlad goboleedka Hirshabelle ka shaqayso link ay leedahay wax kasta ee wasaaraddaas qabatana waa wax ka yimid wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah waxyaabaha qabsoomay marka runtii wax aad u fara badan bay ahaayeen runtii degmada Beledweyne wax badan laga qabtay wadooyin baa laga dhisay waxa laga qabtay horumarka bulshada waxyaabaha wacyigelinta kamid ah waxa kamid ah arrimaha waxbarashada oo runtii heer aad u fiican dowladda Hirshabelle ay ka gaartay waxa kamid ah caafimaadka oo sidii heerkii la rabay wali lama gaarin waa dareemi kartaa Hirshabelle muddada ay jirto laakiin magaalooyinka isbitaal ay leeyihiin isbitaaladu daryeel bay leeyihiin runtii waxaan dhihi karaa dhakhaatiir ku filan lama dhihi karo laakiin in dhakhaatiir markaa caawimaad geysan karto way joogtaa waxaa kamid ah wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii aad ka warqabto mashruuc lida geela uu ka socdo waxaa jirto saleer kuwa la dhaho inay shaqeeyaan talaalkii oo hadda laftooda ku guda jiraan 5 sano Hirshabelle ay jirtay in talaalka ugu socday runtii haddaad ogtahay haddii kaleba 2016 wixii ka horeeyay xoolaha Hirshabelle waxay u dhamaan jireen cudur guux la yiraahdo iyo caabeeb iyo waxay u dhamaan jireen runtii hadda wax badan laga qabtay haddana waa qabanaynaa waa wadnaa waxyaabaha infrastructure-ka oo wasaaradda arrimaha gudaha ay wado kale waxa aad badan waaye waxyaabaha oo mustaqbalka la raba hadda in laga shaqeeyo waa dowladaha hoose in base-ka hoose dowladda la soo dhiso hadda kor un baa noo dhisan dhexdii iyo hoostii waa naga faaruq marka waxaan rabnaa in la soo dhiso dad la doortay ay degmooyinka nooga shaqeeyaan marka ay guddoomiyaal ka noqdaano marka waxyaabaha la qabtay lama soo koobi karo aad u fara badan yihiin waxaa jirta in maadaama aad tihiin wasaaradda qorsheynta aad la shaqeysaan hay'ado dhowr ah oo mashaariicyo kala duwan ka fuliya deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle bal ka waran xiriirada idinka dhexeeya hay'adaha caalamiga iyo wasaaradda qorsheynta runtii waxa aad u wanaagsan waaye xiriirada naga dhaxeeyo anagu inta badan waxaan la macaamilnaa EU-da World Bank-ga waxyaabaha hay'adahaas waaweyn baa inta badan la macaamilnaa anaga mashaariicdu markay keenaan iyaga waxay leeyihiin baranjiyaal ama hay'ado hoose oo la shaqeeyo anagu markayna yiraahdaan mashaariicdan dalbano anagu wasaaradda qorsheynta kale waxay dalbaysaa proposalkii qoraysaa way diree
wixii la soo ogolaado in la aqbalo fan loo helo fankii baa waxaa loo soo dhiibaa EU-do kale EU-du annagaa marka ka wada shaqaynayno waxaa ka mid ah for example barnaamijkan hadda la yidhaahdo crisis recovery crisis runtii Somali crisis recovery la yidhahdaa waa barnaamij mashruuc aad baaxad weyn waa 3 maamul goboleed buu ka dhaxeeyaa annagu lacagta ugu badan annaga inagu baxaysaa Hirshabelle hadduu alle idmo inta badan waxay ku bixi doontaa waxyaabaha ceelasha biyaha wadooyinka iyo kanaalada runtii fatahaadda asalkiisa mashruucu waa meelaha fatahaadda ay dhibaatada u geystay wax laga qabto maalin waad ka warhaysaa kolley degmada Jowhar 40 kilomitir wadooyin aan cabirnay runtii mar dhow in la shaqo galo ayaan rajaynaynaa wadooyinkaas dhismahooda uu bilowdo oo 40 kilomitirna dhul dhow ma aha waa dhul aad u weyn waxaa kaloo jirto in ilaa 6 ceel laga hirgelin doono agagaarka degmada Jowhar oo degmada gudaheeda biyo uma baahna waa ogtahay waxaa kaloo jirto in wasiirka beeraha wuxuu ku maqan yahay beledweyne shaqada uu jiro waa shaqadii FAO webiga ka soo bilow Hirshabelle meesha Ethiopia ka soo bilaabato ilaa iyo meesha uu ku dhamaado Hirshabelle ku dhamaato yaa la rabaa ama in la carro tuuro meelihii boqda la xiro gudihiisa ciidda laga bixiyo maalin dhowto kanaalka Sabuunaan tagnay hay'ad baan la heshiinay oo fan noo heshay waxay ka bixinaysaa qashinka ku jiray si macnaha biyuhu ay marka xawli noogu gudbaan hadduu alle idmo marka World Bank oo kale ayaa hadda mashruuca Somali crisis recovery wada iyadoo barnaamij waxay wadaa la yiraahdo ILED oo runtii 9 wasaaradood ay waxa ku yihiin team ku yihiin runtii ayaga laftigooda mashaariicdooda maalmaha dhow ay soo ifbixi doontaa kama hor dhacay hadda waxay qaban doonaan laakiin dhaqaale anagu aan leenahay Hirshabelle leedahay oo anagu aan soo dhicinay ayaa meesha yaallo hadduu alla awoodo ilaa ummadda looga faa'iideyn doonaa waxaa soo hadalqaata arrimaha fatahaadaha iyo wasooyinka Hirshabelle inta ugu badan saameynta waxaa ku yeeshay fatahaadaha soo laalaabta oo saameyn waxay ku yeeshaan xoolaha beeraha iyo weliba dadka ku hareeraysan webijiinkiisa qorshe noocee idinkaga degan mase laga yaaba in sanadkaani laga baaqsado in fatahaado ka dhacaan deegaanada Hirshabelle maadaama ay aad sanadihii ugu dambeeyay farabaan u leeyahay waa aad u mahadsan tahay Hirshabelle waxa ay ku tiirsan tahay waa xoolaha iyo beeraha labadubana waxay ku nool yihiin oo asal u ah biyaha biyihii marka dhibaatay noo keeneen marna waa la weynayaa oo biyo la'aan ayaa beerihii u qalalayaan xoolihiina biyo la'aan ay u dhimanayaan marna beertiyo adiga dalagii waqtigii la goosanayo u dhow yahay ayay biyihii soo fatahayaan waxay goynayaan dalagii waxay goynayaan dhulkii baaxadda lahaa ee xooluhu daaqsinta u ahaa alloora marka ma la helayo labadayba khasaaray noqotay waa ka fikirnay marka qorshaan ka dejinay qorshahaas intiisa badan qorsho aad u baaxad weyn waaye waxaan ka soo qaadanayaa 2 arrimood sidii loo baajin lahaa inay fatahaad timaado in laga shaqeeyo 2 meesha markii fatahaad timaado la leeyahay hay'adihii waxa noo qabtaano in dalaga la kobciyo abuurista la badiyo in xoolaha suuqooda la sameeyo saad ka warqabto maxjara 2 maxjara waxa laga dhisi doonaa beledweyne mid waxa laga dhisi doonaa Jowhar wasaaradda xanaanada xoolaha wada si ugu dhaqsaha badanna waa la dhisi doonaa hadduu alla idmo ujeedada laga leeyahay maxjaradaas waxay tahay in suuq loo helo xoolihii si loo dhiirigeliyo dadka xoolo dhaqatada ah marka haddii fatahaadii la baajiyo biyihii la waraabiyo ama roobkii yimaado beertii ay ku soo go'do xoolihiina ay calaf helaan runtii Hirshabelle gaajada way ka baxaysaa meesha marka hay'aduhu ay noo keenayaan raashinka waxaan rabnaa inaan dhahno raashin ha noo keenina waxaad nagala shaqaysaan biyaha naga xira oo nagala shaqaysaa u xir lahayn kadibna abuurkii iyo tacabkii nagala shaqeeya kadibna xoolihii aan dhaqaashano si micnaha looga baaqdo loor qamadii oo Los Angeles laga soo tabcay oo nin Amerikaan soo tabcay in qofku gacnaha u horsado yiraahdo loorka qamadiga rabaa runtii anigu iyo Jowhar waxay ahaan jirtay 8meeyadii ninkii joogay Jowhar adduunyo Jowharka jooga aakhirana jannay ahayd bariis baa bixi jiray bariis sidii u yaalaan kanaalada sidii u yaalaan abuurka sidii u yaalaa halka ciladoo jirta waxay tahay in dadka la wacyi geliyo lagu baraarujiyo loo tababaro inay tacab ka bartaan in ayagu tabcadaan waxa soo saarto maxamed siyaad raximahullah wuxuu dhihi jiray biyo sacbadaada looga dhirgaa marka intaad qof wax weydiisan lahayd waxaa fiican inaad wax tacbato waa gartay hadda waxaa dalka ka jira cudurkan coronavirus oo si weyn u saameeyey deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle
bal qorshe idinkaga taga ka wasaarad ahaan cudurku runtii cudur masiibo ilaahay keena waaye waxaan ummadda ilaahay uga baryaa ilaahay subxaanahu watacaala caza wajalla uga baryaynaa inuu ummadda ilaahay ka dulqaado runtii saakay la joogo waxaan isleeyahay guri aysan geeri taabanin ma jirto guri aan saakay laga xanuunsanayn ma jirto runtii qof kastoo damiir leh waa aad buu uga naxsan yahay dadku waxaan leeyahay ilaahay ha loo noqdo runtii wax fiican ma aha cabsida carada allah nagu dhacdayna ilaahay hanaga qaado midda labaad anagu saad ka warqabta coronaha waa markii labaad uu soo noqdo markii hore anaa wasiir ahaa haddana anaa weli wasiir ah aad baa uga shaqaynay shaqo badan aan ka qabanay hadda coronuhu runtii magaalada beledweyne iyo magaalada jowhar labadaba isol centera ku yaala oxygenadii yaala dhakhaatiir baa joogta cid alla ciddii markaa uu soo rito waa la geeyaa hadda ciddii ilaahay teeda u timaada anagu ma celin karno laakiin dadaalkii waan wadnaa hay-adihii nagala shaqayn jiray diyaar bay noo yihiin runtii mahadi ha ka gaarta wasaaradda caafimaadka wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda qorsheynta afartaas ha ka wada shaqeeya maamulka gobolada iyo maamulada degmooyinka waa nagala shaqeeyaan runtii dadaal badanaan wadnaa waxaan isleeyahay degmooyinka dowlad goboleedyada qaar waxaa ka jira anagu inaan aad uga fiican nahay wacyigelinta aad uga fiican nahay walow sidii la rabay aanan gaarin haddana dadaal badanaan wadnaa waan gartay waxaan ognahay in hay-ado badan ay ka howlgalaan gobolkan koronahana si weyn horta ugu jiro deegaankan hay-adaha maadaama aad tihiin wasaaradda qorsheynta ee wax soo diyaarinaya qorshooyinka hay-ada aad la xiriirteen oo ku aadan arrimaha in coronavirus ama covid-19 19 ay wax ka qabtaan ma jiraan runtii waa su-aal aad u fiican hirshabeelle waxaa ka shaqeyso 30 hay-adood ka badan waa laakiin waxay u badan yihiin NGOs oo contract soo qaata shalay waxaan la shirnay iyo daraad shalay ahayd shalay waxaan la shirnay hay-ado gaarayo dhowr iyo 10 oo ka howlgala degmada jowhar runtii dood dheer iyo wixii in layska dhaadhiciyo kadib waxaan isla garanay sidii loo samayn lahaa guddiyaa la sameeyey guddigaas wuxuu ka kooban yahay 11 mise 12 meelaha 4 wasaaradood gobolka degmada ururka dhalinyarada ururka haweenka iyo 6 hay-adood iyo waxsaasuu ka socdaa runtii guddoomiyay doorteen saakay shir bay galeen gudoomiye ku-xigeen bay doorteen xogeeyay doorteen waxay doorteen madaxa maaliyadda weliba waxyaabaha aadka aan ugu dhiirigelinayno waxaa ka mid ah in maamulka hirshabeelle uusan dhaqaalaha iyo wixii meesha kiimada faraha wax ka maamulaynin oo wax ka maamulaya laakiin asaga uusan awood u wada lahayn oo hay-aduhu iyaga inala maamulayaan dhakhaatiirtii qarash ku bixi lahaa wax alla wixii meesha ku bixi lahaa ambalaasyadii adu wixii facility oo loo baahdo runtii meel fiican inoo maraysaa centerka waa shaqaynaya shalaan anigu ugu dambeysaan soo booqday oxygenadii mashiinadii waa yaalaan testigii yaa yaallo shaqaalaa jiro oo diyaar ku ah oo har iyo habeen aanan hoyanin qalabkii loogu talagalay gashan lahayn baa diyaar u ah hay-aduhu marka waa diyaar bay u yihiin laakiin hal shay in lagu baraarugaa fiican waxa waa emergency shayga maanta aad hay-ad ka dalabto wuxuu qaadanayaa process dheer buu marayaa maalinta ay lacagta imaanayso dadkii ama waa dhinteen ama waa bogsadeen marka micno ma samaynayso waxaan rabnaa marka inaan barnaamij isxilqaan barnaamij la jiray oo xas cali khayr wadi jiray barnaamij iska wax qabsan la jiray dowladda gacanka ay waday barnaamij u dhigmi inaan samayno inaan annagu isku tashanno shaqaalaheena inaan lacag ka jarno qof walba oo shaqaalaha idinka laftiina waa ladinku soo socdaa qof kasta oo mushaar qaato contribution laga jaraya magaalada u dhashuu joogaa magaaladii runtii badbaadinay u baahan tahay hay-adaha waa contribution laga qaadaya ganacsatada waa laga qaadaya baarlamaanka laga qaadaya mushaarkooda wasiirada laga qaadaya cid alle ciddii mushaar qaadato degmada jowhar joogto waxaa la isku afgartay in contribution laga qaado runtii arrintaas waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanaya maanta fursaddan qaaliga ah in bulshadu ay soo contribute garayso ama ay wax ku soo darsato waa sadaqa jaariya runtii marka la sheego dhaqaalahaasna bulshada waxaan diyaar u nahay inay iyadu wax ka maamusho oo ummaddii lagu badbaadiyo oo qofkii gurigiisa laga soo qaadayo oxygentii dhakhaatiirtii runtii shaqaalihii ka shaqaynayey arrintaas runtii aadaan usoo dhaweyneynaa bulshadana waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan arrintaas ay ku tabarucaan
sanduuqaas la furi doono sanduuq baa la furi doonaa sanduuqaas meediha lasoo dhigaya tvga hirshabelle laga sheegi doonaa idaacadda joora laga sheegi doonaa waxaan rabnaa in arrintaas bulshadu nala qaato runtii ka idaacad ahaan idaacadda dowladda waxaan rabnaa in arrintaas wacyigelin badan ka samaysaan runtii waxaa nagala qayb galay agaasimaha tvga dowladda hirshabelle alos ayaa shirka ka qayb galay isagaa runtii warbixin badan idinka siin doono laakiin waxaan rabaa in arrintaas aan la dhayalsanin horena loo wado hadduu alla idmo waxyaabaha hadda aa qorsheynaysaan wasaaraddiin in ay qabato maadaama sanadkii 2021 lagu jiro maxaa ka mid ah mar dhow waxaa saad ka warhayso dowladda dhexe sanadkii 2020 waxay samaysay bilowgeedii hay-ad la yihahdo statistics oo hore u jiri jirin ninaa madax looga dhigay runtii guddoomiyaha loo magacaabay madax annagu hirshabelle ahaan qof baa kolley la magacaabi doonaa iyadana hay-addaasaa waxay nagala shaqayn doontaa waxa la qaban doono laakiin waxaa jiro mid iska generaal ah oo qaranka uu leeyahay kii hirshabelle qoridiisa socoto waxaan u malaynaa bisha May ugu dambeyn inuu dhammaan doono waxyaabaha noo qorshaysan la qaban doono runtii annagu number 1 webigaan xooga saaraynaa ummadda in biyaha laga badbaadiyo number 2 waxaan saaraynaa anagu waxbarashada sababtoo bulsho wax baratay markaad hesho waxaad heshay bulsho caafimaad qabto wasaaradda waxbarashada awoodda ugu badanaa laisugu geeyey runtii shaqo badan ay haysaa 3 waxaan dhahaynaa caafimaadka asagu waa muhiim sababtoo ah bulshadii haddii xanuun iyo dhibaato ay soo ridato haddaysan ka wacyigeshneen wixii dhibaato imaanayay runtii waxuma qabsan karto marka mashaariicda ugu badan waxaa la gelin doonaa beeraha oo webiga uu ku tacalluqo caafimaadka waxbarashada midda afaraad waxay noqonaysaa tan dowladaha hoose lasoo dhisi doono hadduu alla idmo xiriirka idinka dhexeeya wasaaradda qorsheynta federaalka iyo tan hirshabelle waa sidee aad iyo aad u fiican yahay runtii wasiir aad u qiimo badanaa joogo wasiir jamaal runtii agaasima joogo waxaa joogo dj baalkii cabdul wuxuu ahaa wuxuu ku magacawnaa joogo waxaa jooga agaasimo waaxaadyo fara badan runtii aadan noola shaqeeyaan wax badanaana naga dhexeeyo mashruucan oo crisis recovery hadda ayagaa nala wada runtii wasaaraddaas hadda anagu inaan u mahad celinna maahane aad aan ka sheegano ma hayno ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysaa bulshada ku daawanaysa fursaddan qaaliga anoo ka faa'iidaysanayo bulshada dowladda hirshabelle waxaan u soo jeedinayaa runtii horta cudurkan koronaha la naga qaado in la duceysto in masaajidada laga duceysto in runtii guryaha aan laga soo bixin intaad awooddo inaad guriga ku jirto intaad awooddo inaad is ilaaliso runtii naftaada badbaadi adig isbadbaadi ummaddana badbaadiya joogtaa maanta waa macnaha wax adig dan ku ah ummaddana dan u ah labo runtii anugu waxaan qabaa dadka aaminsanaa ahay tacbada ma tuugsado in la tacbado tacab soomaalida waxay u taqaanaa in beer la fala kaliya macnaheedu in beer la fala maaha ay shaqo oo benefitable ah oo macnaha faa'iido dhalayso oo qofka u qalanta inuu ka shaqeeyo runtii aad aan soo dhaweynaya shaqada tan ugu hooseysan dad baa ka shaqeeya ugu sareysa dad baa ka shaqeeyo maaha mid ugu sareysa kaliya in loo ordo maaha mid hooseysa kaliya in lagu ekaado beeraha la tabcado xoolaha la dhaqaashto runtii Soomaaliya xoolaha ay haysato cid haysata adduunyada ma jirto cimilada ay haysato adduunyada meel ka jirto ma laha runtii waxaad moodaa marka dadkeedu in hay-aduhu ay dhibaato nagu hayaanba barnaamijka jiri jiray hadda ma aqaanin la joojin kale simkaarada lacagta la isugu soo shubay aad u lugoy Soomaalida runtii waa intaan la dagaalami karno waa la dagaalanay waa soo yareyn hadda simankan daba socodkiisa waa yaraaday inaa ka horeysin kala ma aqaan dadku inay marka wax tacbadaan inay shaqaystaan lacag America iyo Europe laga soo tabcay ama carab sadaqa zaka uu soo dhiibay adoo 20 jir inaad gacmaha horsato runtii ceeb waaye anigu bulshada waxaan qabaa in wixii su'aalo ay qabaan hana soo weydiyaano hadda idaacad bay leeyihiin idaacadaasaan diyaar ugu nahay in su'aal kasta soo weydiyaan inaan uga jawaabno wax alla wixii mugdi ugu jiro dowladda xaggeeda aan ka jahil bixino wax alla wixii horumar oo waddanka jira aan u sheegno wixii ummaduna ha ku baraarugto in wax la barto runtii bulsho caafimaad qabto waxaa laga helaa bulsho wax baratay aad maastay وهذا وديال كودهان intaas ayaa ku soo gabagabeynaya waraysiga gaarka ah la yeelanay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga caalamiga Ismaaciil Maxamed Nuur
oo marti ku ahaa wareysigan gaarka isla markaana uga hadlaynay waxyaabihii u qorsoomay wasaaradda iyo waxyaabaha ugu qorsheysan in ay wax ka qabtaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Mudan wasiir oo kumasan tahay wareysigaadii waqtigaada muhiimka ah aad siisay. Adaa mudan.